السلام عليكم أسعدكم على جناب كسلودا ومركلي مقال كلي ولكن حسن عدلي sidaan horey idinku sheegaba waan soo laabanay sidoo kale intood maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago weegii soo dhamaaday inaan isla falaqeyno hadduu ilaah ka raali noqdo haddii ay tahay markii kuugu horeysay soo boqotay janaalkan la garay sidoo kale intood muuqaalkana subscribe saar inakeena oo aan tagno chatiska waxaan ku bilaabi doonaa DXY anagoo kusoo bilaabayna weekly analysis keena سأوجدنا weekly analysis keena A to B dan baxday waa la premium gareeyay sida ujeedno A to B dan soo baxday waa la discount gareeyay kadib abtirina la aaday soo markii A to B dan soo baxday iyadana A to B dan soo baxday oo weekly ah A to B dan soo baxday iyadana hadda waxa la joogaa meel premium ah maadaama meel premium la joogo suuquna uu tagay OB sidoo kale intood oo fair value gap rejection lagu soo sameeyay insha Allah week xiga waxaan sugeynaa marka candle sidaan camal ah week waaya waxaan la asgareynayno waa weekly insha Allah daily-gana oo tagi doonaa okay maadaama halkan OB ay tahay laga soo celiyay sidoo kale intood halkan ay noogu beegneed fair value gap kiina rejection lagu soo sameeyay sidoo kale intoodna waxa la tagay daily fair value gap CE-giisa loo dhawaaday laakiin ma la tagin rejection lagu soo sameeyay otoku A to B dan watana waa in la premium gareeya kadib again suuqa sidaan uu socdaa meesha targetka noo ahne waa halkaas waa buy side kaas ilaa suuqa laga geynayo waa in suuqa sidaas loo sii wadaa haddii ay dhiciyo sidaas order flow meelahan isku bedeli doonaa sidoo kale intoodna waa inaan la dhiirgaleynaa marka order flow-gaas inay fahanteen isku daya order flow-gaas waa inaan la dhiirgaleynaa maadaama hadda rejection lagu soo sameeyay fair value gap maadaama rejection lagu soo sameeyay halkan ay tahay OB sidoo kale intood fair value gap candleka week dambe furmi doona waxaa laga yaabaa candleka markuu halkan ka furmo in la geeyo dhankaayo down trend kadib la geeyo BBR kaas markii la geeyo kadib la geeyo up trend haddana candle rejection lagu soo sameeyo haddii rejection lagu soo sameeyo candleka sidaan camal uu noqdo oo laakiin week meeshan uu soo taabtaa week waa inuu meesha soo taabtaa candle noocaan camalna oo noo sameysmaa candle sidaan camal ah let me show you candle noocaan camal waa inuu sameysmaa candle noocaan camal waa inuu sameysmaa colorka no matter the color is no matter weegan marka waxaan ka rajeynaynaa suuqa inuu sidaan candle noocaan oo noo sameeyo okay aadna marka lower time frame-yada marka daily-ga la geeyay daily-ga marka asagana fiiri suuqan maadaama fair value gap-kii daily-ga ahaa kala barkiisa aan weli la tagin suuqa hadda wuxuu haystaa meel OB uu haystaa sax order block uu haystaa sidoo kale intood fair value gap-kan uu kusoo laaban karaa OB uu haystaa sidoo kale intood fair value gap-kan uu kusoo laaban karaa suuqa marka I think inaan halkan la geey kari doonin waayo fair value gap-kan hadduu jabo order flow suuqu wuu iska bedeli doonaa amiis kale suuqu markuu soo jebiyo kadib rejection lagu sameeyo rejection kaasna uu ku xirmo fair value gap-kan meel ka sareysa waa inuu ku xirmaa rejection kaas laakiin boodigu waa inuusan soo dhaafin fair value gap-kan sidoo kale intood OB meeshan ka jiro fair value gap meeshan ka jiro candle-kan marka haddii la keeno xataa waxaa cad in uptrend la geyn doono okay tan waa taa aan tagno marka euro USD iyadana weekly profile-keeda sidee buu u yaalaa iyadan saa ujeedno hadda waxaa inoo sameysmay oo suuq hadda wuxuu joogaa A to B dana soo baxday A to B dana baxday waa la premium gareeyay saa ujeedno hadda premium-keedii waa la buuxiyay soo ma jeedin waa la soo premium gareeyay again haddana marka A to B dana baxday A to B dan markay baxday iyadana waa in la discount gareeyaa okay A to B dan intee discount kaaga muuqan karto discount area hadda meesha uu joogo waa meel discount marka suuqa mujeedido soo marka asagana waxaan ka rajeynaynaa ma buy baan ka rajeynaynaa ma sell baan ka rajeynaynaa okay
meesha loo socdo horta waa OB-gan sidoo kale intood halkan waxay haysataa fair value gap soo jeedno fair value gap mar haddii uu jabane Allah ku aruuriyo waay ma fahanti fair value gap mar hadduu jabo Allah aruuriyo candlekan horay ardada waxaan u sheegay in candle sale meeshan uu ka dhalan doono I think muuqaalkan way daawan doonaan ardada qaar maasha Allah weegan hadda candlekan aan u socday candlekan maadaama halkan uu haysto sidoo kale intoodna fair value gap-ka kala barkiisa uu ku xir macnaha ka kor uu ku xirmay oo dhigiisa insha Allah candle ka xiga waxaan sugi doonaa candle buyer oo asagan la geeyo BBR-ka meelahan ku yaalo oo daily ah BBR-kaas sidoo kale intood oo biya meeshan ku jiraan in kadib rejection lagu soo sameeyo haddana oo asagana uu ka dhasho candle caynkan oo kale intooda waa inuu dhashaa isagan candle sidaan oo kale intooda waa inuu dhashaa asagana ما فهمت candle sidaas oo kale intooda waa inuu dhashaa oo weegan haddana candle noocaas oo nasiya insha Allah okay haymaana marka loo wataan filimka marka maxaan ka rajaynaynaa loo wataan filimka soo jeedno halkan suuqa targetka waxaan oo ah sell side-kaas aan oo ah wali uu joogo meel discount area oo suuqa laga buy garay kara haddana order flow wali ma uusan isbedelin suuqa anaga waxaan xukumo order flow suuqa iyo sidoo kale intood taxliilaadkeena anaga aan isku darsanay so meeshan halkan waxa kugu jiro OB kugu jiro sidoo kale intood halkan waa OB sidoo kale intood OB gan waxa laga xushmeeyaa dhahnay week bodiga iyo traditionaliga kan week laga xushmeeyay waa la daatay again meeshan waxa kaaga dhacay shifti kadib waxa lagu soo laabtay OB gaas again marka candlekan marka birito leh waxaan ka rajaynaynaa maalmaha soo socda asagana in korkaas la geeyo oo aan weekliga meeshii weekliga aan ku calaamadeynaa OB-gi waa kan kadib suuqii la soo daadiyo oo target wuxuu ah halkan sell side-kaas haddii ay dhici weydo insha Allah idan waa ogaan doonaa sidoo kale intood trigger meeshan ku jiro oo daily ka sameysmay sidoo kale intood weekliga ka sameysay laakiin waa ogaan doonaa markasta aniga waxaan qadarinaynaa profile-ka suuqan inuu isbedelo waxaan filayaa wax badan aad ka faa'iiday muuqaalkan sidoo kale intoodna haddii muuqaalkan wax ka faa'iiday la wadaag walaalka ama walaashaada u baahan fursadan inay ka faa'iideysato waxaan ku rajaynayaa horumar iyo baraare insha Allah tan iyo muuqaalka xiga insha Allah bye bye